hay-adda Alpha Trust ayaa baaritaano indhafiiqis ah daweyn iyo ulaha ay ku socdaan dadka camoolayaasha ah u sameysay ku dhawaad 50 qof oo camoolayaal ah oo ku jiray mid ka mid ah kaamamka ku yaala deegaanka Sarkuusta ee magaalada Muqdisho. Caruur waayeelo ayaa ka faa'iideystay howlaha indha daweynta fiiqista iyo baaritaanada ah oo hay-adda Alpha Trust ay dadkaasi ugu sameysay cisbitaalka Masaarida ay ku yaala magaalada Muqdisho. dadka indhaha ka xanuunsanaya ay hay-addaasi Alpha Trust daweynta qaliimada iyo indhafiiqistaba ay u sameysay ayaa waxa ay hay-adda Alpha Trust ku soo daabulaysay baabuurta basaska ah. ururkaasi ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada ayaa dadka ku guuldareystay in indhaha loo fiiqo waxa uu u qaybiyo ulul ay ku socdaan dadka camoolayaasha ah. intii ay socotay howlaha indhafiiqista daweynta iyo baaritaanada ah ayaa madaxda hay-adda Alpha Trust waxa ay ku booqanayeen bukaanada indhaha loo fiiqayay cisbitaalka Masaarida ee ku yaala magaalada Muqdisho. Daahir Cali Kulmiye gudoomiyaha hay-adda Alpha Trust ayaa sharaxaad ka bixiyay howlahaasi gargaarka ah oo dadka camoolayaasha ah daweyn indhafiiqis iyo baaritaanaba ay ugu sameeyeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala. waxaan leenahay waa aad iyo aad u mahadsan yihiin Medical Arab Union masha Allah, they are great people. aad ay noo soo dhaweeyeen dad badan amaanta u keenay dadna waxay dhaheen operation ku sameeynayna oo qaliin caruur yar yar ah iyo hooyooyin isugu jira. dadka kalena daawooyin u baahnayeen daawooyin ay noo siiyeen daawooyinka waa ogan masha Allah aniga ku hadlaa magaca Alpha Trust Cabdisalaam gacan iga siiyay iyo rag badan. marka waxaan leenahay dadkiis markina hawshan nala abaabulay waa idinka mahad celinaynaa. maanta waxa farxad noo ah dhaqtariinta in nala taagan yihiin hawl fiican aan qabanay saakay sida oo nimi 7 o'clock ilaa hadda ayaan taaganahay. دكتور أحمد عبد الباسط أخصائي العيون بالمستشفى المصري. يعني يسعدني ويسعد المستشفى المصري ويسعد اتحاد أطباء العرب أن يتعاون مع ألفا تراست لتخفيف العبء على إخواننا الصوماليين. qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ka yimid kaamka ku yaala deegaanka Sarkuusta ee magaalada Muqdisho oo hay-adda Alpha Trust indhaha ay u fiiqday daweyn iyo baaritaan ay u sameysay ayaa ka mahad celiyay howlahaasi. midaan indhaha waa ku mahadsan yihiin khayrna Allah siiyo ilaahana ku shukrayna aygan ku shukrayna unku waxba isman waad lacag manina leeyahay keena eef waa leedin fiiqahay ma qabno saan ku hooyahayna ilaah baa og waa mahadsan intii noo soo qalqaalisiin intii naga qayb gashay. Cabdicasiis Ibrahim Axmed, OK TV-ga Universal magaalada Muqdisho.